بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أرسله الله بالهدى ودينه الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد السلام ولا ليال مركا أغوه رئيس إلهي بامهد إسكاله إلهي مركا لنصور تقليي أنه خيرات كإيو وناقا إسكو شيغينو وحانو صوهيني موضوعين عوانكي سوها أحكام الزكاة دادك لسينا أيام كسور نحجرني. dadka zakada la siinayo 8 qaybood ayay ahaayeen: fuqarada iyo masaakiinta iyo dadka ka shaqeeya waxa waaye iyo kuwa qaarimiinta ah ayaan soo sheegnay, iyo dadka la xoreynayo wa fi riqaabi wal qaarimiin. waxa kaloon ku jirnay wa fi sabiilillaahi, waxa waaye 8 sinfi oo zakada la siinayo waxa waaye qayb fi sabiilillaahi liirada jira. fi sabiilillaahina hore ayaan u soo aragnay, marna haddii waxa waaye waa caam, marna waxa waaye waa khaas. fi sabiilillaahi waxaan soo sheegnay waxay ka mid tahay min masaarifi zakaati 8, meelaha zakada 8 sinfi lagu bixinayo ayay ka mid tahay. waxaana u daliila aayadda qur-aanka oo aan ku bilownay oo aan mar walba soo qaadanayno oo ilaahay yidhi innama asadaqaatu lilfuqaraa'i waalmasaakiin waalcaamiliina calayha waalmu'allafati quluubuhum wa fi riqaabi waalghaarimiina wa fii sabiilillaahi. fii sabiilillaahida marka meeshaas ayay ku jirtaa. waxaa kaloo daliil u ah zakada in dadka fii sabiilillaahi la siinaayo ijmaac waay, waa la ysku raacsan yahay. ijmaacaasna waxaa soo guuriyey sheekha la yidhaahdo ibnulmundir iyo sheekh la yidhaahdo ibnu xasm iyo sheekh la yidhaahdo ibnu qudaama iyo wa shamsuddiin ibnu qudaama. intaas oo dhan waxay maxaanku rahda laga soo waxaway soo rareen oy soo guuriyeen inay ijmaac tahay oo laysku raacsan yahay fii sabiilillaahi, jidka ilaahay in qaybaha sakada lagu bixinaya inay ka mid tahay. qaybta kale waxaa la yidhaahdaa masrafu sahmun fii sabiilillaah, meelaha lagu bixinahay qaybta oo fii sabiilillaahi ayaan ku jirnaa. waxaa la yidhaahdaa meelaha saamiga laga siinaayo waxa waaye masrafu hada sahm huwa fi ljihaadi fii sabiilillaah. fii sabiilillaahi markii aan wax kale lagu darin iyo haddii aan waxa waaye mutlaq laga dhigo, horey baan usoo sheegnay in jihaadka loo jeedo oo dadkana ay u bateen maxaanku rahda ay u fahamsan yihiin. marka saami ayaa laga siinayaa zakada. in macnaha qayb looga dhigo jihaadka waxa waaye madaahibta ayaa isku waafaqsan oo 4 madhabadoo fiqiga way isku waafaqsan yihiin: xanafiyada iyo maalikiyada, shaaficiyada iyo xanaabiladaba. iyo madhabka daahirigana sidaas ayuu la qabaa. aktharu ahlulcilmi mise aktharu alculamaa'i, culimmada intooda badanna saasay qabaan. waxaa kaloo la sheegay inay ijmaac tahayna waa la sheegay oo wax khilaafsanba aan la arkin. waxaana u daliila kitaabka qur-aanka oo aayaddaani oo mar walba horteena taallo oo ilaahay yidhi innama asadaqaatu lilfuqaraa'i waalmasaakiin waalcaamiliina calayha waalmu'allafati quluubuhum wa fi riqaabi waalghaarimiina wa fii sabiilillaahi. meeshaasay ku jirtaa. marka aayaddaani maxaa waaye qaabka looga daliisanayo wajhu dalaalada meesha waxa waaye
laga fiirinayo waxay tahay waxa waaye wuxuu caddeeyey ilaahay qur'aankiisa annahu nassa calaa annahu fii sabiili illaah inay fii sabiili illaahi ay tahay ayuu caddeeyey waayahay wasabiilullaahi waayahay wasabiilun cinda aliطlaaqi fii sabiili illaahi markii la iطlaaqo oo aan maxaan ku idhaahdaa oo la sii daayo innamaa yansarifu ila aljihaadi wuxuu aadaya xagga iyo jihaadka ayaa isla markiiba waxa waaye aadaya fa ina kullu maa fi lqur'aani alkariim dukira fii sabiili illah innamaa uriidu bihi aljihaadu waxyaabaha qur'aanka lagu sheegay mar kastaba magacaani fii sabiili illaahi qur'aanka markii laga hadlaayo waxaa loola jeedaa jihaadka ila alyasiiru meelo yaryar maahane intooda badan jihaadka ayaa fii sabiili illaahi lagu cabiraa fa yajibu an yuxmala waxaa waajib ah in lagu xambaaro oo lagu fasiro maa fii haadihi alaayati calaa daalika aayaddaani waxyaabaha ay wadato lianna aldaahira iraadatuhu waxa waaye daahirka sida muuqata iraadada ama ujeeddada laga leeyahay waaye waxa waaye wa mima warada fii daalika qowluhu tacaala waxyaabaha soo aroray ilaahay qowlkiisii oo yidhi waqaatiluu dirira oo dagaalama fii sabiili illaahi jidka ilaahay ku dagaalama oo aayad suuratulbaqara aayadda 190 uu ilaahay ku yidhi aayad kale oo suuratulmaa'ida aayadda 54 ilaahay wuxuu ku yidhi yujaahiduuna muslimiinta mu'miniinta way jihaadayaan fii sabiili illaahi jidka ilaahay bay ku jihaadayaan taasna waa mid aayad kalena oo suuratu safa aayadda 4 ilaahay wuxuu ku yidhi ina allaha yuxibu aladiina yuqaatiluuna fii sabiili illaahi safa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu jecel yahay kuwa dagaalamaya fii sabiili illaahina ku dagaalamaya safan ayagoo saf ah marka waxa waaye jihaadka in loo jeedo fii sabiili illaahi jihaadka in loo jeedo aayadahaas ayaa caddaynaya waxa waaye waxaa kaloo u daliila sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam rasuulkeena sunnadiisa waxaa ka mid ah xadiis uu wariyey abu hurayra radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi rasuulka ilaahay wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam amaa khaalidun fa inakum tadlimuuna khaalidan niman baa waxaa laga sheegay inay sakada waxa waaye bixin waayeen oo waxa waaye sakada inay bixiyaan cudurdaaro u sheegtay marka rasuulka dadkaasi ayuu maxaanku idhaahdaa ayuu difaacayaayo waxa waaye inay horay waxooday u shaqaysteen amaa khaalidun ninka khaalid ood eedaynaysaan fa innakum khaalid tadlimuuna khaalidan fa innakum idinka tadlimuuna waad dulminaysaan khaalidan khaalid qad ixtabasa adracuhu wuxuu xabisay oo uu xayiray cambuurbireedyadiisii kulligooda wuu xabisay maxaanku raa wuu qoondeeyey wactaadahu fii sabiili illaah jidka ilaahay buu u diyaariyey macnaha ninkaani xoolihiisaba maxaa sake laga qaaday kulligoodaba wixii ugu muhiimsanaa oo cambuurbireedka ah xoolaha lagu yeelan lahaa kulligoodaba jihaadka ayuu u waqfay marka taasna waa mid marka fii sabiili illaahi marka inay waxa waaye jihaadka loo jeedo ayaa xadiiskan loo soo qaatay waju dalaalada annahu laa shaka annahu xabasa adracahu khaalid inuu xabisay shaki kuma jiro khaalid inuu xabisay oo meel dhigay cambuurbireedyadiisii wactaadahu fi ljihaadi jihaadka ayuu u diyaariyey qaybta labaad waxaa la yidhaahdaa annahu laa khilaaf kama taagna oo wax isku khilaafsanin ma jiro calaa annahu tacaala lam yurid kullu wajhin min wujuuhi lbiri fii qismati asadaqaati khilaaf kama taagna in ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa waaye lam yurid inuusan doonin kullu wajhin weji oo min wujuuhi lbiri waxa waaye lam yurad lama doonin waayo kullu wajhin qayb kasta oo min wujuuhi lbiri waa yahay fii qismati sadaqaati falam yujis mana banaynin an tuudaca ilaa xaysu bayana annasa maxawaaye mana bannaana in la dhigo
shay kastaba ilaa meeshii uu naska uu ku caddeeyey unbaa la dhigayaa. ilaahayna subxaana wa tacaala wa fii sabiili illaahi wuxuu ku daray dadka zakada la siinayo masaarifu zakaat ayuu ku daray. qaybta kale annana low fasarna al-aaya biacmaali lbiri, haddii aayadda aan ku fasirno fii sabiili illaahi acmaalu lbiri, acmaasha biriga ee samafalka oo dhan baa loo jeeda. haddii aan ku fasirno lam yakun lilxasri, xasri maba jiri lahayn. waxa waaye xasri waxaa le luqada carabiga aalad ama waxaa jirta qalab oo wax lagu soo xasriyo oo lagu soo koobo oo warkii oo kooban la yidhaahdo. macnaha warkii oo kooban ma imaan lahayn. waxaa waaye haddii ay waxaan ku dhahdaa biriga loola jeedo. waaye walxasri huwa xasrigana meeshaani inama asadaqaatu, inamaa aadaatu xasrin yaa la yidhahdaa. waxa waaye inama asadaqaatu lilfuqaraa'i waalmasaakiin waa la sii waday, wa fi riqaabi waalghaarimiina wa fii sabiili illaahi. meeshaas ayaa waxaa waaye xasriga waxaa waaye intaas ayay ku kooban tahay zakada. marka taasna marka qaybahaas ayay ka mid tahay. waxaa kaloo aan fiirinaynaa ma loo shardinayaa qofka faqiirka ah oo duulaanka fii sabiilillaahi ku jira in zakada la siiyo oo saas darteeda lagu siiyo? ma shardi baa qofka zakada la siinaayo oo duulaanka ku jira inuu faqiir ahaado? ma loo shardinayaa? waxa waaye laa yushtaradu, looma shardinayo fi lghaazi midka duulaaya, shardi loogama dhigayo an yakuuna faqiiran, inuu faqiir yahay shardi loogama dhigayo. fayajuusu ictaa'u lghaniyi lidaalika, waxaa u bannaan qofka haniga ah in la siiyo zakada, in la siiyo oo jihaadka maadaama uu ku jiro looma shardinayo hantiilo ma yahay mise macnaha faqiir ma yahay mise maya, looma fiirinayo. xataa walow kaana haniyan, xataa alghaniyu lidaalika waa la siinaya fi ictaa'i alghaniyi lidaalika. haniga hataa arrintaas darteeda loo siinaya qofka taajirka ah. madhabuljamhuur waaye, jamhuurta ayaa sidaas qabta, maalikiyadii shaaficiyadii xanaabiladaba. dadka ahlulculamaana akharulculamaana sidaas ay yidhaahdeen oo meeshaasay xoojiyeen. adiladana aayadda qur'aanka ayaa mar walba horteena taalla. inama asadaqaatu lilfuqaraa'i waalmasaakiin waalcaamiliina calayha waalmu'allafati quluubuhum wa fi riqaabi waalghaarimiina wa fii sabiili illaahi ayaa meeshan taalla. wajhu dalaalada aayaddan dhinac laga daliisanayo waxay tahay ilaahay subxaana wa tacaala fuqaradii iyo masaakiintaba waxa waaye sinfayni ayuu ka dhigay. alfaqiiru waalmaskiin la iskuma darino, laba tilmaamoodaa laga dhigay. ilaahay saas ayuu ka dhigay. wacadda yacudumaa 6 asnaafin, kadibna ilaahay wuxuu tiriyey 6 sinfi ayuu tiriyey. faqiirka iyo maxaan ku idhaahdaa miskiinka markii laga soo tegey 6 calaamadood ayaa la sheegay oo 6 sinfi. falaa yalzimu wujuuhu sifatin sinfayni fii baqiyati alasnaafi, laazim maaha marka wujuudu sifatin, sifada in la helo. waxa waaye sifatu sinfayni, labada sinfa in la helo waajib maaha fii baqiyati alasnaafi. 6 kale, faqiir oo si gaar loo sheegay iyo maskiin oo si gaar loo sheegay meeshan kuma xirna. kamaa laa yalzimu wujuudu sifati alasnaafi fiihima, sida aysanba laazim ahayn in ay jirto sifadaasi oo sinfooyinka ka mid ah. qaybta kale labaad, liannahu laa yu'khadu limaslaxati nafsihi, waxa waaye qofka uma qaadaayo fii sabiili illaahi, qofka nafsadiisii maslaxa ugu jirto darteed uma qaadaayo, bal lixaajatin caama, dan guud oo jihaad la yidhaahdo ayuu u qaadaya. lacagtaasi ayaa loo siinaya fii maslaxati lmuslimiin. falam yushtarad fiihi alfaqru, marka looma shardinaayo qofka jihaadka fii sabiili illaahi ku jiro saamiga la siinaayo faqiirtinimo looma shardinaayo. inuu faqiir ahaado maxaan ku raha looma shardinaayo. taasna waa mid waayo. waxaa kaloo jira haddana oo aan fiirinayna shiraa'u aalati alqitaali min asilaaxi wa naxwih, waxa waaye hubka. marka ilan fii sabiili illaahi dadka jihaadka galaaya maadaama saami laga siiyey dagaalka, macnahaas waxyaabaha la sheegaayo maxaan ku idhahdaa silaaxa iyo aalatulqitaal iyo hubka
iyo waxyaabaha lagu dagaalamo noocyadiisii kala duwanaa ma loogu iibin karaa zakada iyo wixii la mida waay waxaa la yidhahdaa wuxuu kulansanayaa saamigani oo fii sabiililaahi la yidhaahdo wuxuu kulansanayaa waxa waaye alguzaatu wa aslixatahum dadka guzaada la yidhaahdo duulaaya ayaga saamiga waa la siinayaa iyo wa aslixatahum hubkoodana wuu ku dhex jiraa oo macnaha hubkii ayaga ma kala qaadsana waxaa caddeeyey arrinkaasna inay isku mid tahay oo waxa waaye fii sabiilillaahi ay shamlinayso qofka duulaaya iyo qalabkaba inay maxaan ku rahda xoolahaasi sakada laga bixinaayo waxaana caddeeyey maalikiyada iyo shaaficiyada qowl oo xanaabiladana saas ayaa laga soo guuriyey culimo badan oo wakhtigan joogtana sidaas ayay xoojiyeen qaraar iyo waxa waaye waxaa soo saaray waxa waaye almajmuc alfiqhi altaabicu limunadamati almu'tamar alislaamina sidaas ayay caddeeyeen oo qaraar ayay ku soo saareen oo fatwo ku soo saareen waxaana u daliila aayadda qur-aanka ah oo inama asadaqaatu oo lagu daray wa fii sabiili illaahi ayay ku jirtaa sideeddaasi aayaddan qaybtaan haddana wejiga loogu daliilsanayo waxay tahay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu sheegay fii sabiili illaahi in saami la siinaayo walam yaqul lilmujaahidiin ilaahay ma dhihin inama asadaqaatu lilfuqaraa'i si loo waday fii sabiili illaahi beddelkeeda ilaahay ma dhihin mujaahidiinta lama dhihin fadalla calaa ana almuraada wuxuu ku tusayaa ujeeddadu kullu maa yatacallaqu bihi aljihaad wax kasta oo jihaadka ku tacalluqo oo dhan ayaa waxaa la yidhaahdaa yaa fii sabiili illahi la yidhahda lianna dalika min aljihaadi fii sabiili illah waxyaabaha ku tacalluqa jihaadka oo dhan kulligiisa wuxuu noqonayaa fii sabiili illaahi ayuu noqonayaa qaybta baxfiga lixaad waxa waaye xukmu icطaa'i man araada alxaja waalcumra min sahmin fii sabiili illah waxa waaye mabxath oo lixaad ayaa jira waxa waaye xukunka maxay tahay in la siiyo qofkii xaj u socda iyo cumro u socdo waxa waaye man araada alxaja waalcumra min sahmin qayb ma laga siin karaa fii sabiili illaahi maadaama zaka ay tahay fii sabiili illaahina la yidhi xaj iyo cumro qofkii raba ma looga bixin karaa taas ayaa maxaan ku rahdaa aan fiirinaynaa marka laa yajuusu an yucطaa min sahmin fii sabiili illaah ma bannaana in laga siiyo saami ama qayb fii sabiili illaahi iyadoo oo lagu bixinayo magacaasi liman araada alxaja waalcumra qof xaj iyo cumro raba lagama bixinaayo ma bannaana in lagu bixiyana ma bannaana madhabuljamhuurta ayaa saas qaba xanafiyada maalikiyada iyo shaaficiyada riwaayo kale oo laga soo guuriyeyna imaamu axmedna saasay sheegaysaa aayadda marka daliilka koowaad waa aayaddii inama asadaqaatu ayaa mar walba soo qaadanaynaa wa fii sabiili illaahi ayaa ku jirta waxay wajhu dalaalada marka meesha laga daliilsanayo wajhu dalaala waxa waaye ana sabiilullaahi mutlaq wa fii sabiili illaahi waa mutlaq waay wax meel ku xidhan maha wa huwa cinda aliطlaaqi markii fii sabiili illaahi la iطlaaqana yatasarafu amase yansarifu ila aljihaadi fii sabiili illaahi tacaala jihaadka ayuu u noqonayaa lianna alakhara inta ugu badan mima warada min dikrihi jihaad maxaan ku dhaha fii sabiili illaahi inta ugu badan oo ilaahay qur-aanka lagu sheegay fii kitaabi illaahi tacaala qusida bihi aljihaadu jihaad ayaa loola jeedaa waayo fa tuxmalu alaayatu calayhi aayaddana marka waxaa lagu xambaaraa lagu fasiraa kaas ayaa lagu xambaaraa taas waa midda kale ana alakhda alzakaa ima lixaajatihi ilayha kalfuqaraa'i aw lixaajatina ilayhi kalcaamili waxaa la yidhaahdaa qaybtan labaadna waju dalaalada in zakada la qaado waxaa loo qaadaa imaa lixaajatin baahi jirta darteedii baahiya loo qaado baahiya loogu talagalay waa macnaheeda waxaa loo qaadayaa waa baahi darteeda waxa waaye kal faqiiri oo kale baahidiis in lagu daboolo ow lixaajatin mise xaajo iyo dan waxa waaye ayaa lagu bixinayaa ow lixaaja walaysa alxaju minha waayo baahidaasi
loogu talagalayna waxa waaye zakada waxaa loo qaaday xaajo sida faqiir oo kale baahi uu qabaa mise ow lixaajatinaa ilayhi baahida aan u qabno kalcaamili qofka ka shaqaynaya oo kale baahiya loo qabaa qofka caamilkana haddiisan cid ka shaqaysa la helin waxa waaye xoolaha waxa waaye zakadaasi lama helo marka qofka caamilkana waa loo baahan yahay walxaaju laa yaxtaaju ilayha xaajigana intaas oo dhan looma baahna waxay licadami alwujuubi calayhi cayl hadduuba waxba haysanin oo xajka wuxuu iskaga bixiyaba aan haysanin waajibba kuma ahaba xiina idin in kaana faqiiran hadduu faqiir yahay macnaha faqiirtinimada darteeda waa loo siinayaa baahidiisii aan ka soo hadalnay laakiin xaj darteed maadaama uu faqiir yahay ha laga xajisiiyo lama dhahay macnaha kuma bannaano waayo waxa waaye bannaanaan la-aantana waxaa keenaya baahina ma jirto oo laba dhinac ah qofkii faqiirka ah iyo qofka caamilka ah maxaan ku idhahdaa baahidood oo kale ma jirto waayo walianna cindahu kifaaya in kaana haniyan haddii hataa uu kifaaye haysto in kaana haniyan walaa naxtaaju naxnu ilayhi uma baahnin marka baahi ma jirto waayo oo waxa waaye xaj zakadaasi ku xiran la-aanteedii sida qof faqiirka iyo qofka ka shaqaynaya oo kale ma aha waayahay qaybta kale ana almaala sadaqaat musrifun fii dawi alxaajaat walaysa alxaju minha waxa waaye maalka sadaqada waxaa lagu bixinayaa fii dawi alxaajaati dadka baahiyooyinka qaba walaysa alxaju minha xajka ka mid ma aha xajka ka mid ma aha taasna waa mid waaye midda kale waxa waaye 8 sinfi tii u dambaysay fuqarada iyo masaakiinta iyo dadka ka shaqeeya waaya walcaamiliina calayha wa fi riqaabi waan ka soo hadalnay waxa waaye walghaarimiina waan ka soo hadalnay wa fii sabiili illaahi aan ka hadalnay wabni sabiili 8 sinfi midka u dambaysa waa ibnu sabiil qofka musaafirka ah waaye qofka musaafirka ah waxa waaye isagana dadka sakada la siinaya ayuu ka mid yahay ibnu sabiil luqada carabiga waxaa lagu yidhaahdaa almusaafiru musaafir ayaa la yidhahdaa lianna asabiila adariiqun wa sumiya almusaafiru waa yahay ibnan laha macnaha waxaa la yidhahdaa luqada carabiga ibnu sabiilka musaafirka loola jeedaa qofka musaafirka ah ayaa loo jeedaa marka sabiilka waa ariiq waaye ibnu ariiq oo kale waaye jidka inankiisi wa sumiya almusaafiru musaafirkii waxaa lagu magacaabay ibnan laha inuu cunug u yahay asaga safar waxa waaye dariiqii inuu cunug u yahay oo cunugiis oo kale ayaa lagu magacaabay waalmulaazimu lishayin qad yudaafu ilayhi biwasfin albunuun waayahay biwasfi lbunuwati waayahay kamaa yuqaalu waladu lleyli liman yakhiru khuruujuhu fiihi wabnu lmaa'i litayr lmaa'i limulaasamati lahu waxaa la yidhaahdaa ibnu sabiil ayaa la yidhi qofkii musaafirka ah macnaha musaafirka waxaa loogu magacaabay lisuluukihi laha dhaqan ayay u noqotay waayo suluug waayo waana shayga qofka markuu mulaasim ku noqdo uu laazimo mulaasimka ah qofka mulaasimka ah shay uu mulaasim ku yahay qad yudaafu waxaa dhici kartaba in loo idaafeeyo ilayhi shayga qofka markuu laasim ku noqdo waa loo tiiriyaa macnaha qad yudaafu ilayhi biwasfin waxa waaye banwatin binu waxa waaye sida la yidhaahdoba waladu lleyli ayaa la yidhahdaa miithaalka lagu fahmaayo waladu lleyli habeenka cunugiisa ayaa la yidhahdaa yaa lagu magacaaba waladu leyl waxa waaye habeenkii cunug looga dhigay liman yakuuna khuruujuhu fiihi qofka bixitaankiisa habeenka badan yahay ayaa waladuleyl yidhahdaa wabnu lmaa'i waxa waaye ibnulmaa ayaa la yidhahda litiiru lmaa'i limulaasamatihi ibnulmaa waxaa loo dhahay isagana
laazimitaanka biyaha uu laazimayo waayo ibnulmaa la yidhahdaa marka wabnu sabiil marka luqada carabiga haddii aan ogaanay luqada istilaaxa ama sharciga iyo wuxuu u yaqaana diintana huwa alghariibu aladii laysa biyadihi maa yarjicu bihi ilaa baladih wa in kaana ghaniyan fiiha waxa waaye waxaa la yidhaahdaa ibnu sabiilkana qofka ghariibka ah la yidhahda musaafirka ah waa ghariib waay alladii laysa biyadihi maa yarjicu bihi ilaa baladih ma hayo gacmihiisa kuma jiraan wax oo maxaan ku rahda meeshii waddankiisii ugu noqdo ma hayo wa in kaana ghaniyan fiiha waddankiisii qof taajiraba ha ku ahaadee mar haddii sahayda ka go'day oo wixii waddankiisa ugu noqon lahaana uusan haysanin waxa waaye waxaa la yidhaahdaa ibnu sabiila la yidhahdaa waxa waaye zakada ayaa qayb laga siinayaa zakada ayaa qayb laga siinayaa fii sabiili illaahi waay ibnu sabiila la yidhahdaa ibnu sabiilka marka wuxuu ka mid yahay min masaarifi zakaati meelaha zakada lagu bixiyo ayuu ka mid yahay ibnu sabiilka maadaama min masaarifi zakaat uu ka mid yahay adiladeeda marka aayaddii qur-aanka oo inama asadaqaatu aan soo warnay ayaa waxaa ku jira wabnu sabiili musaafirkana waa la siinayaa qaybta labaad adilada labaadna waa ijmaac waayo waa la isku ijmaacsan yahay in la isku ijmaacsan yahay ijmaacaas waxaa soo guuriyey ibnulmundir ibnulxasm ibnu qudaama culimmadaasi ayaa waxay soo guuriyeen waxa waa inay ijmaac tahay ibnu sabiilkana musaafirka ah inuu maxaan ku raha zakada qayb laga siinaayo macnaha dadka qaybta laga siinaayo ayuu ka mid yahay sideedda markii aan soo tirinay wabnu sabiili ayaa ka mid ah ibnu sabiilka marka waxa waaye saas waay marka ibnu sabiilkiya ayaa dadka wax la siinaayo ayuu ka mid yahay marka qaybtan marka waxaan fiirinaa hal yucطaa sahbu ibnu sabiil liman saafara fii macsiyatin waan soo ogaanay musaafirka inuu qayb ku leeyahay ma la siinayaa saami ibnu sabiilka ma laga siinayaa qof safarkiisii uu ahaa safarulmacsiya liman saafara fii macsiyatin qof ilaahay caasintiisii maxaan ku rahdaa ku dhex jira ilaahay caasintiisa wuxuu u safray ama wuxuu ku dhex jiraba ha ahaato macnaha ma la siinayaa waayo ibnu sabiilnimo ma lagu siinayaa maadaama safarkiisii safarulmacsiya uu yahay laa yucطaa min azakaati zakada lagama siinaayo liman inqataca fii safarihi almacsiya qofkii safarkii macsiyada waxa waaye kala go' ku dhacay safarkiisa safar caasi ahaa zakada waxba laguma siinaayo maa lam yatub hadduusan wixii xumaantii uu u soo safray uusan ka toobadkeenin hadduusan ka toobadkeenin waxaa caddeeyey waxa waaye jamhuurta ayaa caddaysay maalikiyadii shaaficiyadii xanaabilada madhabu daahiriyana saas ayuu la qabaa daliilkana cadamu icطaahi min azakaati inaan la siinayn fii safari almacsiya ayaa daliil u ah ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku yidhi watacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan isku kaalmaysta samafalka iyo waxa waaye khayrka iyo cabsida ilaahay ha isku kaalmaysanina dembiga iyo collaytanka ha isku kaalmaysanina suuratu lmaa'ida aayadda labaadu ilaahay ku yidhi wejhu dalaalada marka aayaddan qaabka loogu daliilsanaya waxay tahay anna man sarafa azakaa ilayhi icaanatun cala almacsiya waxa waaye haddii zakada la siiyo qofka safarkiisa safarulmacsiye yahay zakada haddii lagu bixiyo macnaheedu waxay tahay in qofkaasi loogu kaalmeeyey ilaahay caasintiisii gacan lagu siiyey noqonaysaa marka taasna waxa waaye midda kalena daliilu icطaa'i min sahmi ibnu sabiil idaa taaba waxaa daliilka kale waxaa la yidhahdaa qofka in la siiyo saami musaafirka ah in la siiyo hadduu xumaantii ka toobad keeno towbadu waxaa la yidhahdaa tajibu maa qablaha qofka markii wixii uu ka soo noqdo oo uu ka toobad keeno toobada waxay tirtiraysaa wixii waxaasi ka horeeyey dembigaa way tirtiraysaa waaye tajibu maa qablaha wa rubamaa kaana wujuucuhu ilaa baladihi taarikan lilmacsiya waxaa dhici kartaba noqoshada beledkiisa u noqonaya marka horeba inuu uga soo baxaa laga yaabaa ilaahay caasintiisii taarikan lilmacsiyana waxaa laga yaabaaba wa rubamaa kaana rujuucuhu noqoshadiisii ilaa beladihi waddankiisa u noqonaya waxaa laga yaabaa inay noqoto taarikan lilmacsiya macsiyada inuu ka tagoba wa iqlaacan canha xumaantii inuu ka foqo kalcaaqi qofka caaqa ah caaswaalidiinka ah oo kale
yuriidu rujuuca ilaa abawayhi aabbihiisa labadii waalidkiisa inuu baari u noqdo darteed inuu ugu socdo. marka hore wuu ka soo tegey caasinimo ayuu uga soo tegey, waxa waaye musaafirna waaye. labadiisi wuu toobad keenay, labadiis waalid inuu ku noqdo ayuu rabaa. waxa waaye marka waxa waaye qofkaasi waa la siinayaa, wuu toobad keenay. walfaaru min hariimihi oo imra'atihi, macnaha qof ka cararay hariimkiisii, qofkii waxa waaye qaanta ku lahaa ayuu ka soo cararay, mise xaaskiisii ayuu ka cararay. yuriidu alrujuuca ilayhi, inuu u noqduu rabaa. maxaa yeelay intaas noqoshada oo dhanba waa toobadkeen oo waaye. marka intaas dhan markii la isku daro waa la siinayaa. waxa waaye masrafu zakaati, waxa waaye wabnu sabiili, qofka musaafirka ah oo waxa waaye oo wixii uu ka toobad keenay ka naqday, waxa waaye waa la siinayaa. maadaama toobadiisaba waxa waaye ay eg tahay toobadkeenka uu toobad keenaayo, ficilkaas ayaa lagu garanayaa. marka ibnu sabiilka ma loo shardinayaa zakada in laga qaado allaa yaqdira cala alaqraadi, oo uusan amaahda iyo deenta inuu iska bixi uusan awood u lahayn. casharada kuwan ku xiga ayaan ku sharixi doonaa, ama qaybtan halkan ayaan ku joojinaynaa. ilaahay ha nagu anfaco. hada wabillaahi tawfiiq, wallahu calaa maa aquulu wakiil. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh.